bulshooy ganacsiga xortii ragoo qulowma xidhne haweenkana wow xaalaa majira xardiidayo aqbaanay u leeyihiin hooliyo maalay dhaqdaan xaqiiqdii inay helaan kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa radio dalsan, kuna soo dhowaada barnaamijka tusmada guusha qaybtii 16aad. barnaamijka tusmada guusha waa barnaamij aynu ku dhiirigelina haweenka ganacsiyada yaryar ku jira kuwa doonaya in ganacsiga ay kusoo biiraan. sidoo kale waxaynu kusoo bandhignaa haweenka guulaha ka gaaray ganacsiga. waa barnaamij toddobaadla ah, waxaana naga taageeraya hay-adda BBC Media Action. waxaa maalgelinaya hay-adda iskaashiga iyo horumarinta u qaabilsan dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo Norad. radio dalsanna waad ka dhageysanaysaan. qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maasha allah way jiraan. markaa kan dhaqaalo fiican ka helay wixii aan keedinayay ayaa xarun kale ku furay. waa Nadar Muuse Cumar, waa haweeney ganacsiga meel wanaagsan ka gaartay iyadoo ilaa iyo dhowr xarumood oo lagu iibiyo waxyaabaha uduga ah kule gudaha magaalada Muqdisho. barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. sidoo kale barnaamijka tusmada guusha waxaad ku dhageysan doontaan. waxaa jira waxa la yiraahdo maskax la dagaalanka kicinta ganacsadaha yararka lagu kiciyo. waa Ilwaad Cabdi Xasan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku jira. waxay ka sheekeynaysaa culeysyada ay kala kulantay ganacsiyada waaweyn oo ay ku jirtay. waxaad kaloo barnaamijka kaga bogan doontaan. walaal idinkoo mahadsan, anigu iminka shaqadoonun baanahay. khadroy maadaama carwadaada alaabta guryaha lagu gaday aad u ballaaran tahay, waxaan isdhahayaa asmi shaqo waa ugu soo helaya. waa maadayska tale iyo tacab oo aynu barnaamijka tusmada guusha inta aynu ku guda jirno aad ku dhegaysan doontaan. aragtidiina barnaamijka waxaad inoogu reebi kartaan Facebook radio dalsan, idinkoo aragtidiina ku dhiiban kara sidoo kale fariinta gaaban ee 434. bulshooy ganacsiga xortii ragoo qulowma xidhne haweenkana wow xaalaa majira xardiidayo aqbaanay u leeyihiin hooliyo maalay dhaqdaan xaqiiqdii inay helaan waa tahay dhegaystayaal, barnaamijka tusmada guusha ayaan guda gelaynaa. waxaa barnaamijka maanta marti noogu ah aqoon-yahan aadan xasan maxamuud oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee Sibam. aqoon-yahan kusoo dhawow barnaamijka tusmada guusha. farxiyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo bahda tusmada guusha, waana ku dhawaa barnaamijka. ganacsiga ayaa ah fikrad ku dhalata qofka, kaasi oo ay u muuqato inay tahay fursad bannaan oo bulshada looga faa'iideyn karo, sidoo kale lagu dabooli karo baahiyaha ka jira bulshada dhexdeeda. fikraddaasi waxay martaa marxalado kala duwan oo dhaxal siisa qofka inuu bilaabo ganacsi, taasi oo marxaladaha kala duwan dabadeed keentay in guulo wax ku ool ah uu ka gaaro ganacsigaasi. Nadar Muuse Cumar waxa ay ka mid tahay haweenka ganacsiga ku haysta magaalada Muqdisho, waxayna meel wanaagsan ay ka gaartay howlaheeda ganacsi iyadoo 2 xarumood oo lagu iibiyo waxyaabaha uduga ah sida cadarada, barafuunada iyo waxyaabaha dumarka ay isku qurxiyaan ay ka hirgelisay magaalada, iyadoo qorshaheedu uu yahay in xarun 3aad ay ka furto magaalada. xarumaheeda waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 5 hablood oo heerka waxbarashada darajada 1aad dhammaystay, kuwaasi oo habka xisaabaadka ka saacida goobaha ganacsi ee Nadar ku leedahay magaalada Muqdisho. waxa ay 3 bilood mar ay qorshaysaa inay caawiso dadka waxba aanan haysan. waxay ka hadlaysaa qaabka ganacsigeeda iyo fursadaha ay haysato in goobo kale oo ganacsi ay furato. ugu horeen dukaamada waxaan ku iibiyaa waxyaabaha la isku carfiyo, barafuunada, carfisooyinka, waxyaabaha dhan oo uduga ka kooban ayaan ku iibiyaa. xarunteeda ugu horeysana waxaan ka furay isgooska Maanabooliyo, gaar ahaan magaalada Muqdisho. sanadka waxay sanadka waxay ahayd 2012.
waa gartay xaruntaasi markii aad bilaabaysay yacni waa tii kugu horreysay marka ma jiraan dad shaqaale ah oo meeshaasi ka shaqeeya maadaama adiga hal abuurkii furitaanka aad lahayd meesha? maasha allah way jiraan. xarunta ugu horeeyay waxaan ka shaqo siiyey 2 gabdhood oo meeshaas hadda isgoyska Manaboli ka shaqeysa. labadaas gabdhood ay ka shaqeeyaan. waa gartay markii meel la furo waxaa lagu fikiraa sidii dhaqaale meel looga dhigi lahaa ama lagu maareeyo ganacsiga loo dhiga meel ama qoyska lagu maareeyo. marka qarash waad ka hesay yacni maadaama xaruntii koowaad ay ku ahayd? maasha allah si wanaagsan. qarash in igu filan waan helay. maasha allah qaar waan ka keedsanayay, qaar qoyskeyga ayaan ku maareynayay, qaarna dadka masaakiinta ku quudiya ku caabiya bishii. waa gartay xaruntan koowaad dhaqaalihii ka soo baxay ma jiraan xarumo kale oo aad furtay si ganacsigaaga aad usii ballaarayso? maasha allah way jiraan. marka kan dhaqaalo fiican ka helay oo wixii aan keedinayay ayaa xarun kale ku furay oo wuxuuna ku yaalaa Xamarweyne, degmada Xamarweyne. degmada Xamarweyne sidoo kale waa goob labaad oo yacni waxyaabahan uduga iyo ganacsigaaga aad gaarsiisay? sax. xaruntaasna waxaa iiga shaqeysa hadda 2 gabdhood oo jaamacad mar dhow ka baxay oo bartay xisaabta. toddobaadkii isbuuciina waxaan u tagaa 1 jeer. 1 jeer ayaa u tagtaa yacni waxaad ku kormeertaa howlaha xisaabaadka iyo shaqada? sax. waan gartay yaa kugu dhiirigeliyay marka in ganacsigan aad gasho oo yacni ku dhiirato oo aad furtay dukaan oo carfisooyinkii iyo cadaradii iyo barafuunadii iyo carfisooyinkii yaa kugu dhiirigeliyay? ugu horeen horta maskaxdeeda aniga iyo niideeda waan ku haminayay, laakiin waxaa igu sii garab qabtay igu dhiirigelay hooyadey macaan. hooyada ayaa kugu dhiirigelisay? sax. waxa qabada ma la kulantay oo markii aad furayso kale? maya wax iga hor imaada maan arkin oo wax caqabad igu noqdo, laakiin maasha allah howlahayga sidii aan haminayay ayay igu kala socdaan. yacni waxaa ka dhigantaa markii hore ayaad qorshayaal iyo go-aan meel dhigatay si aad ganacsi u gasho? waa taa. marka riyadaadii meel qayb ka mid a ayaa kuu rimowday? sax. marka hadda waa rajeynaysa inaad hore usii socoto? waxaan jeclahay inaan heer wanaagsan ka gaaro ganacsiga. waan garta maxaa ugu baaqi lahayd marka haweenka kale ama gabdhaha kale ay doonayaan inay ganacsiga soo galaan oo kale maxaa tale ku siin lahayd? waxaan talo ku siin lahaa horta waxaad hamiso waa gaaraysaa. haweenkana waxaan kula talin lahaa qof walbo hamigiisa inuu hirgeliyo oo ilaahay u hirgeliyo oo asigana dadaal uu sameeyo. haweenaa tahay guriga iska seexo inuu is oran dhaqaaq uu sameeyo. haddii haweenka ay ganacsi galaan oo ama ganacsi ay bilaabaan ma la dhihi karaa waxay saacidi karaan nolosha qoyska dhinaca dhaqaalaha inay ka kabaan? si fiican. anigoo waa kaa hooyadee waa saacidaa, qaar meel baan ka dhigtaa, qaarna dadka masaakiinta 2 ruuxa aan caawiyaa. yacni 3 biloodba sida aad hore igu sheegtay xisaab xira ayaad samaysaa? sax. marka wixii kale oo soo kordhay dadkaa ku caawisa? waa ka. waa tahay barnaamijka sida hordhacayn idinkugu sheegnay dhegaystayaal waxaa marti inooga aqoon-yahan aadan oo arrimaha ganacsiga ka faallooda. aqoon-yahan aadan waxaynu wada dhegaysanay guusha qayb ahaan ay gaartay nadar oo ah gabar ganacsigeeda uu aada u korayo, weliba ay u shaqeeyaan ilaa iyo 5 hablood oo ay ka taageeraan dhinaca xisaabaadka. toddobaadkii mar ayay tagtaa si ay kaalinteeda u muujiso ee ku aadan in ganacsigaasi ay horumar ay ka gaarto. marka maxaa aragti ah oo aad ku biirin lahayd si ganacsigeeda iyo fikradaha ay weli ka qabto in ay guul gaarta aad usii xoojin lahayd? xasan salaad xasan laki aad baad u mahadsan tahay. gabadha aad ka soo sheekaysay oo nadarne run ahaantii waxa ay samaysay tallaabo aad muhiim u ah. waxay abuurtay waxa loo yaqaano business opportunity. sidiisa bannaana qofka biniaadanka waxaa fiican in uu mar walba abuuro waxa la yidhaha creativity ama hal abuurnimo inuu yeesho. taasi waxay tusaysaa horumarka ay gaartay muddo kooban ay ku gaartay inay hal business abuurtay, mid kale abuurtay, mid saddexaad sii abuurtay. waxay abuurtay waxa loo yaqaano opportunity bulshada u abuurtay sidaad sheegtaba ama ayadu ay sheegtaba. waxaa waaye arday jaamacadaha ka soo qalin jibiyey
oo ilaa 4 amba 2 gaara ayaa xarumo ka kala shaqeeya sidaas darteed waxay abuurtay bulshadii waxay u abuurtay ganacsigaas dadka ka shaqeeya waxay biri naqanaya dad iyagana businessman ah sidaas darteed waxaan dhihi lahaa aniga Nadar waa gabar aad u wanaagsan oo abuurtay hal abuurnimo leh hal abuurka waliba meesha ugu wanaagsan ka gaartay waxaan kula talin lahaa marka inay hore u sii socoto sidaan iyo si ka sii wanaagsan ay u sii wado maxaa la yiraahdaa hal abuurnimadeeda businesskana siisbana wuxuu ku fiican yahay in loo laamo badiyo mar walba oo laamuhu ay bataan waxaa badanaysa fursadaha waxaa badanaysa shaqadaha taasina waxay keenaysaa in businesskeedu as soon as possible oo success noqdo company inay noqotana meelba uma jirto waxaan dhihi lahaa marka magaca inaad mar dhow company la bixi doonto ayaan rajeynaya aadan u mahadsantahay xasan. dhinaca kale Ilwaad Cabdi Xasan waxay ka mid tahay haweenka ku jira ganacsiga waxay ka sheekeynaysaa muhiimadda ay leedahay in markaasi ganacsiyada soo koraya la garab istaago si markaasi ganacsiga uu guul u gaaro waxaana markaasi ay u warantay barnaamijka tusmada guusha iyaga oo u sharaxaysa qaabkii ganacsigeedu uu soo maray iyo culeysyadii ay la kulantay. aad baa u mahadsantihiin maadaama aad soo booqateen oo aadna weydiinaysaan ganacsiga iyaga wuxuu ama caqabad ku yahay ama wuxuu soo kordhiyey aad baa u mahadsantahay soo dhawow ganacsiga waxaan ku soo biray 2000 sanadkii 19aad baa lagu jiraa 19 sano baa ganacsada ahaa laakiin hadda wax ganacsada la yiraahdo ma jiro oo caqabado badan baa ganacsadaha iyaga ganacsadu 3 group weey waa ganacsada yar ah oo mislee ah iyo ganacsada dhexe iyo ganacsada waaweyn baan ahaan jirnay waa kala dambeyn jirnay xurmaan lahaa qofna wuxuu lahaa alaabta waaweyn inuu gato oo keeno qofna wuxuu lahaa haafka iyo kisayda iyo kirliga iyo bacda inuu gado haatana waxaas dad baa iskula wareegay caqabadaha naga qabsada waxay yihiin ganacsadihii ugu badnaa oo waaweynaa hadda waxba ma hayaan waxaa jira waxa la yiraahdo maskax la dagaalo la yiraahdo kicinta ganacsadaha yararka lagu kiciyo waayo qamrad ganacsadaha Omaanaan lihino dadka ganacsadaha waaweyna ma garanayaan ama dadka maartay mutacalimiinta ma garanayaan ganacsigu wuxuu yahay waxaad ka soo qaadaa Sembari anagu hadda Afrikaan bana wadanka Mareykanka oo kale ganacsadaha waaweyn laba maalmood bay leeyihiin ganacsadaha yararkaana waxay leeyihiin 28 kale leeyihiin waxa keenaya taas in la soo kobciyo ganacsadaha yararka marka anagana lama soo kobciyo waana la baabiyaaba caqabadaha naga qabsaday oo haddaan dumarkan nahay oo ugu badan waxa kamid ah gaari hadday dumarku raacdo xurmo kuma haysano hadda diliyado naag baa ganacsada waa lagula yaabahayaa qof hadduu wax kaa qaata waxay ku leeyihiin waa xoolo naageed ama waa lagugu dilayaa qofkii wax kaa haya inaad 2 rag isweerarsiiso maahane cayi aflagaada lagula imaanayaa iyo in lagugu garaaco wax xaquuqo hadda dumarka u doodahaya oo dhahaya haddii 10 nin meel fadhido oo aad tiraahdo war xoolahayga ninkaas haysta layga siiyo waxaa la leeyahay naadii naag baa tahay naga fariiso warnaagtu akhlaaq xuma waa qaylinaysaa baa lagu leeyahay marka waxa keenaysa caqabada inaan markaas ganacsigayga aniga aan dib u noqdo oo aan nacba ganacsiga oo alaabta aan naco ama alaabta laftigeeda aan burburiyo waayo qofkii aniga soo kordhin lahaay oo oran lahaa waa mahadsan tahay aniga markuu ugu horeysay 9 sano ku soo biiray waayo ma soo marin markii horeba isla wareeganimo iyo meel aan ka soo orday midna ma soo marin kow markuu ugu horeysay inaan nafteeda u shaqaysto wax soo saarto baan ku talagalayba qof bilaadan aan dhicin qof bilaadan aan boobin qof bilaadan aan meel istaagin xaraan aan cunin inaan shaqaysto ilaa saacadaasna shaqadii baan ku jiraa aqoon-yahan aadan waxaynu wada dhageysanay habka Ilwaad ay ganacsiga ku soo gashay isla markaana ay u waday bal ka waran ganacsigeeda iyo talada ay u baahan tahay sidoo kale waxay sheegtay in loo baahan yahay in ganacsiga la taageero. Farxii Muraad aad baad u mahadsantahay walaashii qaaliga midda labaad Ilwaad waxaan leeyahay horta waxa ay sheegtay waxay ka jireen magaalada marka laga hadlayo sharciyadana adduunyada hormartay businesska marka laga hadlayo waxa la sameeyaa shuruuca loo sameeyaa sida Mareykanka kale waxa kamid ah sida iyada naftiga gabadha ay ka dhawaajisay dadka businessmanada ah oo ganacsada waaweyn ah inay leeyihiin waqti go'an saacado go'an time go'an inay ganacsadaan dadka yaryar ee ganacsigooda oo soo korayna waxay leeyihiin inta badan maalmaha inta ka soo hartay sidaas darteed in Soomaaliya ma ka jiro sharci ganacsada waaweyn u fasaxayo ama u ogolaanayo inay waqti gooniga ganacsadaan waqti gooniga ka xir ay joojiyaan maxna wax loo yaqaano ganacsigooda ay xiraan taasi waxay keentay in caqabad weyn ay dadka ganacsatada yaryar ay ku horgudboonaato ay fursad u waayaan inay ganacsadaan sidoo kale waa run ninkan billioniska haysto wuxuu falisayaa ninkan $100 $200 raadinaya ama la waxa la midka ay ku falisaya badeecada taasina waxay meesha ka saaraysaa ganacsatada yaryar ee Soomaalida
maadaama ganacsatada yar ay suuqa ka saarayso dowladda waxaa laga rabaa inay samayso waxaan loo yaqaano shuruucdaasoo kala xadidayso ganacsatada la dhihi karo ninkan ganacsiga weyn haysta ama alaabaha waaweyn la soo dega in la dhihi karo daad waxaa leedahay xayndaabkaas waqtigaas iyo waqtigaasaad ganacsan kartaa shuruud loo soo keeno sida kan yarna uu soo kabto naftirkiisa kan yar aan la dhihin obin baa tahay la yidhaahdo on time that time waqtigaas ilaa waqtigaas waxaa laga rabaa inaad suuqa ka ganacsato waqtigaasna suuqa aadan ka ganacsan si labada dhinac opportunity-ga u furnaato la yidhaahdo adiga alaabta waxaad ka soo qaadaysaa midkan yar la yirahdo waxaad ka soo qaadaysaa kambaniyashan waaweyn oo Soomaalida kambaniyaash waaweyn naftooda lagu celada la yirahdo alaabta ninka in ka qaada waa inaad maadaama uu soo korayo intaas percentage ay u faa'iideysaan macnaha waxaan loo yaqaano la isku daalac naazila oo suuqi laga dhigo mid aan ahayn mid ismaamulo ee la maamulo oo noqdo bulshada sameynaysa marka waa ninka sameeya ganacsiyada waaweyn marka ay qofkaani ay ayaga naftooda suuqa ka saaraan asagana biri waxaa imaanaya mid kasii weyn sidoo kale suuqa ayuu ka saaraa taasi waxay keenay marka suuqi Soomaaliya oo dhan gebi ahaanba inuu meesha ka baxo suuqi hadduu meesha ka baxo waxaa baxay ganacsiga Soomaaliya markuu baxana waxaa burburay dhammaan qiyamkii ama ganacsiga qiyam ahaa ee weynaa ee Soomaaliya ay lahayd shuruucdan Soomaalida hadda ee dunida isticmaasho Soomaaliya weli kama jiro laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ba inay shuruucdaas soo dedejiyaan dowladana garab laga siin doono midda ha ahaato maxaa la yiraahdaa opportunity dadka la siiyo oo suuqa waqti loo xiro waqtina la siiyo waqtina loo furo middan kala ahaato anyway waxaan ku talin lahay dowladda Soomaaliya inay shuruuc ka soo saarto leezinada ay bixiso hadiiba leezina ay jiraan way jiraan oo sax dowladda leezin way bixisaa leezinada ay bixiso naftigeeda inay controlkooda ay tiraado waqtigaas qofka macnaha opportunity kan yar si opportunity helo kan weyn opportunity helo la isku daalaan casilo waliba in la xoojiyo si xeel dheer loo fahmo xarumaha ganacsigooda xanaaniyo dhiirigelin la xeeriyaba habboon markan dhegaystayaal barnaamijka tusmada guusha dhinaca fariimaha gaaban iyo facebooka ayaynu eegaynaa magacaygu waa hodan cali muxsen waxaan joogaa ayay leedahay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaan leeyahay ganacsiga ay ku jirto nadar waa mid aad u kordhaya ama usii kordhaya waxaanan ugu hambalyeenayaa fursadaha shaqo ay siisay gabdho waxbartay oo haatan xisaabaadkeeda dhanka ganacsiga ka saacida fariinta xigta waxaa naga soo gaartay aasiya cabdi xuseen waxaan joogaa ayay leedahay deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellada hoose waa muhiim in haweenku ay ganacsiga sii xoojiyaan waxaana kula talinayaa ganacsatada yaryar in iyaguna ay u muujiyaan dulqaad ganacsatada waaweyn si markaa iyaguna fursad ganacsi ay uga helaan fariintan waxay naga soo gaartay axmed abukar waxuu ku sugan yahay degmada hodan ee gobolkani banaadir caasimada Soomaaliya ee Muqdisho wuxuu leeyahay waxaan ugu baaqayaa baada ganacsatada waaweyn in ay gacan qabtaan ganacsatada yaryar gaar ahaan doorka haweenku iyaguna waa u muhiim in ganacsiga lagu caawiyo maadaama inta badan culaysyo ganacsi ay haweenka qaarkood ay soo wajahaan haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii 16aad ee maadeyska tale iyo tacab oo xisiisa gaara wata هلو وار علي السلام عليكم وعليكم السلام وريا عبدي maxaa telefoonka igula soo kala waad iga doonaysaa war saaxiib saaka maxaa ku helay kulkulida cadceediba soobay bixinay war cadeel lahane maxaad iga doonaysaa in qoslaayo waxa uu doonaya la garanay baa tahay ii sheeg waxaad ii soo wacday saaxiib horta waxaan telefoonka kugu soo diray inaan kaa raali geliyo hadalkii Maryan ay kugu tiri markii aad soo booqan aniga aflagaadada Maryan ii geysatay waxa igu wacan waa adiga saaxiibkay ahaa adigaan ku soo booqday aad baan uga xumahay aflagaadada ay xaaskayga ku geysatay raali kamaan ahayn war anigu iyada dib uma arko laakiin anigu gurigaaga jooga weliba hortaada inay sidaa Maryan ugu tiriso miyaan istaahilaa maya saaxiib ma istaahishid weliba waan canaantay Maryan horta gurigaaga dib dambe u iman maayo adigana Maryan baan kugu ogahay war caliyow Maryan qof cadhaysan bay ahayd xaalkeeduna ma wanaagsanayn adigu ma dumaashida oo hadal yar kugu tuurtay ayaad ka samri laadahay adigu cabdiyow waxaanad kala garanaynba hadal iska soo tuuray iyo aflagaada cad oo la ii geystay imika dhibaata ma jirto qof dumar oo cadhaysan hadal ay kugu tirina wax ka soo qaad male iyaduba way iska ilowday halkii bay kaga tagtay anigu teeda waan qaadan karaa laakiin adigii aflagaadada dhageysanay ayaan qaadan kari lahay imikaan ku fahmay xaggayga waan kaa raali gelinayaa sababtan telefoonka kugu soo dirayna sidaasay ahayd war waan ka aqbalay waan kuure ee ka waran gacantii ma ku bogsatay alxamdulillaah rabbil caalamiin waan iska ladanahay weli waqtigii baan ii dhammaan u dhakhtarku igula taliyay waxaan se kaa rabaa saaxiib inaad lacag yar ama hayso ilaa waad iga shaqeeye dee lacagan ku amaahin kara ma haye adigu goormaad imika shaqo tagaysaa
السلام عليكم فيسان walaalo waa maxay saacadan disuuda iyo sukuntaad maydhaysaa calaykum wasalaam xalay baan ka seexdayo saakana weliba waan ka daahay xalistooda bal ii waran walaalo waanu wada fiicannahay carruurtii iyo xaajigiina ka waran waanu wanaagsannahay adduunyana kala qarisay bal ii waran adigu waa run huunno iyadoon waxba la qabanaynin ayaan haddana la ishaleelaynin ahay walaalo carruurtii iyo cabdi iga waran alxamdulillaah aad baa walaalo loo wada fiican yahay cabdi unbaa gacan ka dhaawacmay mooyaane maahee bisinka siduu wuxu noqday walaal shaqadu walaalo ku soo dhaawacmay wax weyne ma qabo iminka muddaba muu shaqaynin hayadee waadiga shaqada ka fadhiistay yaada biiliyaa wallaahi faysay ilaahay baa noo maqan xaalkuna walaalo wuu iska adagiyey cabdi talexumadiisu halkaa inaad indhigaysa waan garanayay iminka sheekadii guurka sawmuu dhaafin faysay guuriya walaalo waxaasi way dhammaadeen iminka qowtal duruurigii ayaaba lala daalaa dhacaya yaa iminka idin biiliyaa maryanee bal caadi igu waran taa allow daa lacaga dayna iyo jaararkoo marmarna caawiya mooyaane wax allaali wax meel kale nooga yimaadaan ma jira yaa naama jaararkaa la idinka soo baaheeyaa allaba ayey goormay sidan idiin dambaysay naa maya naa waa jaarar aanu si gaara iskaga warhayno hoogay naama anigoo noolayaad heero kale wax ka qaadataa naa walaal bal horta istaji maxaad horta walaal la xanaaqdaa sidaad moodday maahee bali dhegayso hortaan ku fahansiiye maxaanu xanaaqi waay oo isagiina gurigeebu idin dhex jiifaa sow maaha xanuunkuunbaa walaal jiifiye cabdi waxba nagama hagrado oo laydhkii biyihii iyo bisha dugsiyada sidaba dabartaa walaal horta laydhkii waa la jaray carruurta iskuulkoodiina maamulihii baan la hadloo waxaan ku idhi iga yara sug oo markaa ma gurigee baalaydhabu kuu dhex hurtaa sidan nolol maaha maryane oo walaal waa qadar ilaahaye maxaynu yeeli karaynaa hay dhegayso ninkan maxaad ku qabtaa waxba saw maaha sidee yacni faysay kumaan fahmine dee iskaga tagnaataa 20 jirka ayaa tahay miyaad carruurtaada iyo naftaada u shaqaysan karin bal shayddaanka iska naar waa maxay fudaydkani hawli way dambaysaaye waxaan carruurta dabka u saaraan kuugu imid inaad isiisee bal shayddaanka iska naar walaal waa si fiicane bal aynu eegna halka ay tala ku dambayso in raashinaanku siinaad maalmo carruurta u karsato waa yahay walaale miyaan kaa helaya talow wax lacagoodii amaahiso السلام عليكم أبح قرمت عربة سوق شينا وعليكم السلام خضروي انت تلفك كو مشغول سنيد با وانكو اك جوغي معميل لين كو مشغول سنا اي ورن بل غبرتان يا واي ابايدا ميا وصاحبتي ولا شيء عملنا واي مقعدنا ياسمين لا دها سو دو ياسمين باي والله الواد ما هدسنتها وان دوها خضروي ان ياسمين سفي عن سكين برو معميل عصب ميا ياسمين حافظة اكتين اي waxay ku lahaan jirtay dukaan midkaaga oo kale oo fadhiyada kuraasta iyo hurdada lagu gado lahaan jirtay miya dhahday ها أنا معميل وأهان شري سان هذه معميل كواه عمر هذا ياسمين دكان كاس ما بهي 600 ها ولا دكان كاس يمك فربي يقومشرو بسم الله يوم حضاري دكان كاس أباي ولا الخضرة جناح سوف فادية خسارة بملأ خضرة يسوما مغلين دونتي دبي كإيمان يسوي دكتي هي دكتي ولا الدون تاسي لابتي صارنت ها أباي هدان كو كسي دكان كاغا waxaas ku yaalay xaafadaas oo ubax tilmaamayso korna waxaaba uga qornaa magacaaga oo gaduuda ها ولا badeecadii doonta degtay waaba gartay dukaanka wax ma kaaga harin miyaa walaal xaalada kala duwan oo qoysaaneed buu dukaankaas ku baxay aad baan uga xumahay dhibkaas ku soo gaartay laakiin abay waxaan ku warsanaa dukaankaaga caymis ma ku jirin miyaa walaal maya caymis ma diiwaan gelin taas aaba ku seegtay aniga laftirkayga doontaas badeeca ii saarnayd laakiin caymiskii aan ku jiraa ilaahay nagu gargaare khadra abay ilaahay alaabtaadii ku ceymiyay yaasmiin imika waxba gacan kuma heeso habarteed oo jirina waa haysaa وبحي صاحب هذا محان قبن كرنا ولا ردينكو معتنا أنا قوي مكشقدون بانها خضروي ما دام عروضها الألعاب تقوليها الوجا ذي أضب بلارنتها وحن اسلها ياسمين شقوا وسهلة ياسمين سين وحيلا قف ملكي لها هذا هاي دكان قدو مكو جلسة ولا الحال كي أنا وكشقدون بانها يمك على كل حال أرت الشقالة مؤباهني لكن هذا وحن كاردي يا كالسو إيبي صاحب أديكو مهسن ما كاليها بكديكتي waa ogtahay abaay uu baxay waqtigan xilligii alaabta guryaha la gadanayay ma ahan waa sax walaal anaaba la socdo xilligan inaan suuq weyni jirin ilaan labadiina xilliga suuqa waa la socotiin u baxay adiga oo saaxiibta iyo yaasmiin oon isku shaqo ahayn taa u sameeyna shaqo abuur waxaan uga dhigaa kaaliso iibiye waa mahadsantahay abaay waxaan u gartay inaan caawintay aad baad u mahadsantahay walaal khadra adna u baxay walaal mahadsanid abaalkiina ma gudi karo adaa mudan yaasmiin abaayo shaqo yaqaan tahay anna kulli wax la igu soo kordhinaysa waa shaqo yaqaan abaayo
hadday wax kugu soo kordhiso soo adigana ma dalacsiinaysid yaasmiinay maxaad bugaagteeda ka eegaysaa war faysal balaagtayda soo fadhiiso maasha allah walaal markay farxadi kaa muuqato annaguna waanu faraxsannahay adduunyadaas ka sidaasee meeday hodantaadii hodantayni ma fogey maxaa jira waar annagu hodantinimadeeda maanu aragay dhegayso waanu yeedhiye horta ma war fiican baad u sheegaysaa hooye way hurudaa hodanna ma arkaya waxaan doonaya inaan idiin wada sheego farxaddaadan ka garanayaa maanta malaha bishaaraad noo wada soo ma aragtid inaan buugaagtaada rogrogaayo waan arkaaye noo bishaareedee walaal faysal horta waa anigii baryahaaba shaqadoon ahaa ma shaqaad heshay i dhegayso gabadh macmiishaydii ahayd ayaa maanta ii geysay saaxiibadeedoo iyana ganacsigaygii oo kala haysata oo deedna shaqo kaalisa caawiyaabay siisay laakiin ha u sheegin hodantaada ilaa caaw iminkaan hooyana soo toosinaya hodanna waan u sheegayaa bishaaradaas wax la qariyo maahay alxamdulilah dhe walaal waa alxamdulilah iyo waxaan ku idhi hawl baan kaaga baahanahay wax alla waxaad ii dirto diyaar walaal macaan waxaan kaa doonayaa inaad xisaabaadkii iyo iibkii intaan aqaana ii kordhiso xisaabaadka ganacsiga oo keliya maaha waxaan kuugu darayaa caymiska iyo faa'iidadiisa iyo siduu u shaqeeyo waad mahadsan tahay galabta hore aan u tegayaa maadaamaan shaqada ku cusubahay si aan u ilaaliyo wakhtiga odanna waan u sheegaa soo maaha inaad shaqo heshay ikraanay hooyo kaalay biyaan cabanayo keeno hooyo waabad soo raagtay maxaa kugu dhacay maanta naasii biyaha wari ma haysidi biyaha waa kuwa kane hadha maanta ma jaamac baysa soo fahmi weyseen naa hooy ninkaa iska ammaansii cidda ammaanka laga laaya waad garanaysaa oo ma cidaad ammaan ka weyday baa jidha haddaanad isyeelyeelayn aad baad uga dheragsan tahay waxaad yeeshaa eeg nashqadahan waa kuwii moolkee nashqadaha waa labee maadaa doonaya in labadaba la sameeyo anigu maan doonayna jaamac baa ay kala doorasiiyey soo ma aragtid lacagtuna way kala duwan tahay haddaa ma waxaad rabtaa inaad hadha mid ka doorato haaya kii ku cajabiyey ii sheeg nashqada tan ay cajabisay ayadaan dooran lahaa isku dooq baynu noqona laakiin lacagta fiiri waa qaali kama bixi karno hooyo hooyo wax weyn uma dhexeeyaane edhabaanku miyaanu deynku sii siin karin wuu isiin karaa laakiin muddada aynu ku bixinayno ayaa aad iigu dheer edha hooyoy wax weyn ma aha dukaankaaga iyo kayga wixii ka soo baxa ayaan ku gudi karnaa 10 sano ku dhowaad ma daynuun baynu bixinaynaa edha hooyo ma weynaan kaba fikirin magaaladan moolka sidaa u weyn inay qaadi kadho magaaladan toosan way weynaanaysaa mustaqbalkana magaalo ganacsi oo caana bay noqon doontaa insha allah haddeer moolka in la dhiso waa muhiim soo maahan haa sidaa ayaa ila wanaagsan lacagtana sidaas sheegta baanka ayaynu ka doonan doonaa waxay yidhaahdaanna waan eegi ganacsatoo dhan baa kuu imanahaysa magacna waa kuu soo jiidahaya magacii lagu qori lahaa baa lagaa rabaa hadha hooyo magac miskiinka ma tihid moolka hooyo isir baa lagu qorahaya hooyo moolkan hawshiisu ma yaree casho miyaad inoo samaysay caawa kalluunka aad jecleed suuqii waa laga soo waayo hooyo hadha laakiin casho kaloo kaale iska araga aan kuu diyaariyey isig hooyo markaan maydho salaada cishana aan tukado ayaad ii keeni doontaa cashadee hadha hooyoy waxaad ii sheegtaa qofka aad ammaanka ka laadahay waa kuma ma imikaad dib u gocatay warkaygii ma cid adiga ammaanku siin weysay ba aniga ammaan ka helaya hooyo ii sheeg 5 taabanu la tegi lahaay bal ka warran qofkaasi hadduu aabbahaa yahay yaa aabbahay warsame muxuu sameeyey maanta wuxuu sameeyey qof miir qabaaba kamay suuro gasheen bisinka hooyo mala aabba maahan qofkaasi maxaa qaatay odayga muxuu sameeyey baa tidhi bal ka warran hadduu caawa idili gaadhay idili gaadhay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ikraan waxbaa calaacalin iga fogee markaan ku lahaa inuu ficladaa soo wado waan garanayay hooyo bal ii sheeg wuxuu kugu sameeyey caawa markaan ka soo baxaya xafiiska jaamac oo aan albaabka weyn marayno sawtii uu diiday inuu albaabka naga furo oo markaa ma jaamac baa kula socday haa gaadhigiisa ayaan saarnaa oo wuu isoo dhowaynayay oo soodiga tagsi iska qaadan jiray markuu gaadhigu kaa xumaado jaamac baa yidhi shaydaanka iska naaro albaabka naga furo saa maxaa dhacay intuu xaggayga u soo wareegay ayaa burkii uu sitay daaqadii aan saarnaa uu gig kaga siiyey waxaaba kaaga daran inuu yidhi shaydaankan aad leedahay iska naar sow kan gaadhiga kuu saaran bisinka oo ma jaamicii la hadlaayay buu kuu malaynahayey edha meeshu ma mugdi bay ahayd naa aabbaha qiil hawdaydaynee dhegayso laakiin muraayadda way kuu dallacnayd soo ma ahan haddayna ii dallacnayn burkaabay iiga soo geli lahaa hooyo armu jaamac u caraysnaa hedhe aabbow sidee alla kuu galay soodiga qofka weyne maxaa ku helay igraan aabbo nabad waaye hooyadaamaa ku soo dirtay saacaddan waxba ima soo dirina wixii dhacay bay ii soo sheegtay adi maxaa kaa khaldamay waxba igama qaldamine hooyadaa waa ogeyd inay dukaankaada iga soo raacdaysay oo markaa ma nafteeda dhibaato ula iman haysa aabbow anuu saaba kuma moodahayne mayee aabbo markay dukaankaaga iga soo raacdaysay haddana inaan meeshan ka shaqaynayay iga daba timaado baalxoofti iyo jeesjees aan u aqaannaa waana qaadan waayey joog aabbow anugu waxaan u malaynahayaa waxay hooyaday kaaga fogaatayba waa sida tan aad u dhaqmayso aabbo igraan sidaa u malaynaysid ma aha adigaba
ma oggolaanaysid in lagugu jeesjeeso oo markaa ma bur baad u soo qaadanahaysaa ka war hooyad haddii wax gaari lahaayeen aabba aad aa u xanaaqsan tahay ma waxaad jeclaan lahayd in jaamac iyo hooyada aniga igu jeesjeesaan hedha ninkaad gaadhigiisa jebisay saas inuu kaaga haraayo ma u malaynahaysaadi inuu ku xidhaa baan kaaga cabsi qabaani shaqadiisa waaba uga tegee muxuu ii xiraa waxaanba u dulqaadan karin jeesjeeska hooyadaa iyo jaamac oo waa iskaga tagtay haddeer shaqadii miya ma rabo shaqada jaamac sababtoo ah ma arki kari isagoo isir la socda inuu hortayda marmaro hedha aabbo waan kula kaftamay ma masayr baa ku taabtay adiga maanta haddaad wiil ahaan lahayd sheekada sidaan waa ka beddelnaan lahayd inaan gabar ahayaa kuu fiicane aniga midiga maqal hedha dukaanka ha igu imaan jaamacna agtiisa maba kula rabo jaamac agtiisa haddaad igu aragtid wax kala waaye hedha aabbow anaa guriga kuugu imanahaaya waxa kastoo doonaysaan anaa ku siinahaaya markaa isir aan ka wada cabsanaynaa mooho weliba in la xoojiyo si xeel dheer loo fahmo xarumaha ganacsigooda xanaaniyo dhiirigelin la xeeriyaba habboon